أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال وأنا السلام يا مرور بدون كده في سكة جوكتين. سلام كدب. وحن جعله مانتا إنني لو ذاقو موضوع أصلا مانتا أني يوسو تبيني مقالي مقال iyadoo iga barateen markii hore in video and recording just maqal ah bas maanta aan maqal iyo muuqaal inii soo tabinayo iyadoon haddii ilaahay nafta ii daayana aan sidan oo kale mararka qaarkood iigu soo gudbin doono video ama mawaadiic sidan maqal iyo muuqaal mararka qaarkoodna ay just maqal noqon doonto sidii hore. anigoo muddo hawada ka maqnaa ayaan maanta u helay fursadan inaan videogan soo geliyo duruufaygu xirna awgeed. maanta mawduucan ka hadlayo cinwaankiisu waxa weeyaan qeyrka ha ku mashquulin. waxaan wada ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed haddii aan Soomaali nahay runtii in ay inagu badan tahay ka daba shaqaynta iyo ku mashquulida dadka bini'aadanka. runtii waa waxyaabo aan oran karo dib u dhac aad u ballaaran ay inagu yeelatay haddii aan ummadda Soomaaliyeed nahay. waxaad arkaysaa mararka qaarkood dad yacni shaqo ka dhigtay ama mashquulkooda ugu weyn uu yahay inuu ogaado ummadda kale noloshooda iyo xaaladahooda ama xaaladaha kala duwan ee dadka la soo gudboonaan kara haddii ay dhib noqoto iyo haddii kaleba. inta ugu badanna waxaad arkaysaa dadkan Soomaalida ay Ilaahay inaga dhaliyay inay yihiin dad inta badan dhibaatada iskugu farxa, ama qof bini'aadan dhibaato ku dhacday ama qoys dhibaato ku dhacday waxaad arkaysaa iyadoo intoo shaqo laga dhigto maanta dhan laga sheekeynayo shaah lagu cabeeyo meel walba, rag iyo dumar, weliba rag iyo dumar baan odhanayaa zamankan. qofka bini'aadanka intuu naftiisa ku mashquuli lahaa oo naftiisa fix garayn lahaa, waayo qof walba Soomaalidu waxay tiraahdaa guri kasta in gubatay baa hoos taala. dadku hadday isku fiirsadaan xaafad kasta iyo guri kasta in dhibaato ah ayaa maxay ahayd ka aloogan ama dhibaato ayaa haysta dadkay doonto ha noqoto. dadku waxaa qurux badan inay iyagu naftooda ku mashquulaan oo noloshooda si u horumarin lahaayeen ka fikiraan, oo siday haddii ay dhibaato haysato dhibaatada uga bixi lahaayeen ay ku mashquulaan. laakiin maanta dhan haddii aan maxaa la yiri ku jiro qofkan waxan baa ku dhacay baa la yiri maxaa u sababa aan ku jiro dad dhibaato ama khilaaf soo kala dhaxgalay aan buunbuunistiisa kusii mashquulo oo wixii dhacay 110 shay oo kale aan sii dul dhigo. maxaa iga soo gaaraya ama maxaa ka soo gaaraya qofka bini'aadanka? maxaa faa'iido uga jirta oonan ahayn kali inuu waqtigiisa maalaa yacni ku lumiyay dambi weyn oo maalinta qiyaamaha ula imanaya inuu xambaartay camalkiisii wanaagsanaa oo qofkan ha ku mashquulsan yahay maanta dhan hadal haya oo ugu deeqayo oo hadiyadu siinayo. waayo maanta markaad qof hadal haysid ama aad xumaan ka sheegtid wixii wanaaga ee khayraad aad u sameeynaysay camalkaagii eed qofkan u hadiyeynaysaa ood siinaysaa oo isaga miisaankii xasanaadka loogu darayaa, adna intii yarada ilaahay la hortegi lahayd ayaad iska baabi'inaysaa. waa arrin aad iyo aad run ahaantii looga naxo, waana shayga ugu badan ee maanta dadkeenu ay ku jiraan. haddii aad maanta dhibaato ka maqasho qof walaalkaaya waxa fiican inaad niyadda u dhistid oo tir hadal wanaagsan aad ka tiraahid. ma aha inaad niyadiisa sii gubtid hadalla yacni niyadda kasii xumaynaya aad ku tiraahid. nabigeenu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam faltaqul khayran aw tasmut, yacni ama wax khayr ku jira dheh haddii kale iska aamus. laakiin maanta taasi ma jirto. dab qof bini'aadan oo isagiiba laga yaabo inuu warwarsan inuu murugaysan yahay ba maanta dhan niyadiisa dab lagu sii shidayaa oo waxyaabo yacni qofka bini'aadanka moralkiisa dhulka sii gelinaya ayaa laga odhanaya. laakiin waxa fiican qof walba oo yacni adduunyada horta dhibaato lagama waayo, problemna lagama waayo, say doonto qofka ugu dhacdo. waayo adduunyan joogna waana daar ibtilaa, waa daar imtixaan weeyaan, ilaahay baa ku imtixaamaya. laakiin qofku waa inuu kalsooni buuxda ku qabo mar walba naftiisa iyo problemkan inuu ka gudbi karo. inna macal usri yusra buu ilaahay yiri, yacni dhibaato kastoo ku dhacda wanaag iyo faraj baa ka dambeeya.
qofka yani dhibaatadu ku dhacda mar walbana waa qof ilaahay jecel yahay oo ilaahay doortay, kama dhigna ilaahay baa nacab subxaana watacaala. anbiyadiisii adduunka dadka yani uu ka doortay ayaa ahaa dadka ugu itixaanka badan ajarka iyo khayrka iyo wax walba dee ka faa'iiday. waayo ilaahay markuu yani qof walba inuu qaadi karo ayuu maxadani ku ridaya, qofna wuxuuna qaadi karin kuma ridayo. waa ka ilaahayna laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha, yani wax daaqadaada ka weyn ilaahay marna kuma saarayo. qof kasta inuu qaadi kara ayuu ilaahay siinaya. qofkani ay dhibaatadu kusoo noqnoqonayso waa qof dee qaadi karaya waxaan oo handalgarayn karaya weeyaan, oo ajarkeediina qaadanaya, oo ka adkaysi badan dadka kale, oo ilaahay ugu doortay dhibaatadan inay ku dhacdo. waa qof adag inta ugu badan. laakiinse dadka iyagu dadka ku mashquulay waxaan u geyn karaa amaan odhan kara waxa u geynaya daciifnimo iyo kalsooni daro naftooda ay ka qabaan. dad baaba ku farxaba dhibaatada dadka oo sii buunbuunaya. qofkaa kalsooni dara haysat naftiisa ku haysat, hadduu qofka bini'aadanka xataa ku farxana berri isaga wax u maqan ma oga, halkaa iyo halka daran buu soo joogsan karaa qofku, meeshaa meel ka daran ayuu soo joogsan karaa. mar walba qof bini'aadana oo dhibaato ka maqasho inaad u dacaysa ayaa kula gudboon. ilaahu khayr uga bedel, ilaahu khayr uga dhig, ilaahu si khayr qabta, ilaahu qofka marxaladan uu marayo u fududay. duca ayaa kula gudboon oo ajarnaad ka helaysaa. laakiin haddii aad tiraahdo ka faa'iidayso qofkan maanta waa weak point wuxuu ku jira, sii wado, sii falanqeeyo, shaha ku cab, dee waxa weyn adigana waa mid kaago ilaahay dadka uu isku eegaya soo maaha. qofkana wax dhibaato ah haba yaraatee yani experience unbaa u kordhaya, kii wax dhibaato ah yani ama wax nuqsaan ay ku imanaysa male, waa waayo aragnimo iyo experience iyo ad adaygu dee qofku kasii qaadayo dhibaato kasta oo hesha. marka waxaan fariinta soo gudbinaya maanta waxa weeyaan qeyrkaa ku mashquulin, qeyrkaa weligaa ha ku mashquulin. naftaada sidaad u toosin lahayd u fiiskarayn lahayd ayaa kula gudboon oo kuu faa'iida dhaanta wax walba. intaasaan maanta kusoo gabagabeynayaa. intaan dib dambe kulmana saa nabadgelyo.